السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaan asxaabta nagu xiran muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa isla markaana ku falanqeyn doonaa arrimaha interview-ga la xiriira waxa uuna video-gani daba socda muuqaal aan maalmihii la soo dhaafay soo gelinay baraha aan social media ku leenahay taasoo guud ahaan bulshada nagu xiran su'aalo badan naga soo weydiinayeen haddaba muuqaalkii hore waxaan kaga hadalnay guud ahaan bulshada gaar ahaan dadka dacwaduhu u socdaan ama laga yaabo inay u xariisan yihiin kuwa hadda doonaya inay xariistaan ama kuwa laga yaabo in reject la siiyay ama interview-ga ku dhacay wuxuuna barnaamijkeenu daarana guud ahaan interview-ga iyo qofku qaabka ugu wanaagsan ee uu isugu diyaarin karo waxaana nuxurka ama biyo dhac muuqaalkeenu ahaa in maadaama bilihii ugu dambeeyay soo badanayeen dadka interview-ga ku dhacaya in la helo miqyaas ama estimation sax ah oo qofku ku cabiri karo case-kiisa si ugu yaraan uu u ogaado in case-kiisu wax ka khaldan yihiin iyo in kale haddaba annagoo soo koobayna waxaan rabaa inaan iskor taagno dadka cusub ee laga yaabo inay safarka dacwadooda hadda bilaabayaan waa dadka hadda waxaraysanaya iyo dadka hadda kadib raba inay xaraystaan dacwadaha noocan oo kale ah waxaa muhiim ah in inta aadan xaraysan programyadan inaad faham guud ugu horeyn ka hesho nooca dacwadda iyo guud ahaan shuruudihiisa haddii ay ahaan lahayd xaasnimo 5 group community iyo guud ahaan dacwadaha noocyadooda kala duwan waxaana ula jeedaa mar walba oo aad fahansan tahay sida wax u socdaan iyo waxa lagaa rabo waa mar walba oo dacwadaadu guul ama caafimaad qab laga yaabo inay ku dambayso qaybta labaad waa dadka hadda wax u socdaan ama laga yaabo howlahoodu inay meel dhex marayaan oo laga yaabo inuu approval helay ama farihiiba maray oo aan weli interview helin waana dadka warwarka ugu badan haysto ee xiriirka nala soo sameeya su'aalaha ugu badanna na soo weydiiya ma rabno inaan shuruudaha case-ka iyo qaabka ugu wanaagsan ee loo diyaarsho aan waqti badan ku lumino maadaama aan muuqaalkan kii ka horreeyey uga hadalnay aadna ugu faahfaahinay halna waa muhiim inaad ogaato case walba oo diyaarsan kama hadlayno in uu buuxiyey shuruudihii case-ka laga rabay iyo in kale laakiin waxaa mar walba iska caadi ah in uu ka koobnaado feasible iyo invisible questions su'aalo muuqda iyo su'aalo aan muuqan laakiin qof walba oo khabiir ku ah arrimahan marka uu case-ka akhriyo uu si fudud ugala soo bixi karo sidaa darteed haddii aysan kuu kala baxsanayn ama inta aan interview-ga la gaarin aadan iska xallin waa arrin khatarteeda leh waana halka Soomaalidu ka tiraahdo inta aadan geedka tegin ayaa gartaada la naqsadaa oo heedu yahay ogow hadiiba khalad ku jira case-kaaga inaad xalliso interview-ga ka hor qaybta saddexaad waa dadka wax maray laakiin aan ku baasin interview-ga ama si toos ah reject loo siiyey dadka noocaan ah waxaa weli u furan fursad labaad oo mar kale dacwadooda iyo arrimaha keenay in case-kooda lagu qanci waayo dib u eegis lagu sameeyo waana muhiim in qofku helo lawyer dacwadiisa iyo case-kiisaba horgeeya guud ahaan xafiisyada ay qosayso ama lawyerkiisii hore ha noqdo ama mid cusub uu markaa qabsaday ha noqdee waxaana hadiiba abiilkaas lagu guulaysto ka dhasha su'aalo badan kuwaas oo guud ahaan ku saabsan wixii keenay in case-ka lagu qanci waayo fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqato channelkeenna waxaa naga xasuusin ah inaad videogan like garayso siina share garayso si uu meel fog u gaaro dadkuna uga faa'iidaystaan warbixintan muhiimka ah hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbinno aysan marna ku dhaafin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa walaalkiin Saacid Xaaji Aadan oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh